السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada hooyooyinka igu xiran meel walba aad joogtaan dunida daafaheeda ku soo dhaw channelkan markasto waxaan soo geliyaa waxyaabo aad aan isku dhigi karo hooyooyinka ama bulshada kugu xiran aad bay uga faa'iideysan karaan. Maanta waxaan ku wadaa cashirkeena taxanaha ahaa oo quseeyay caruurta yaryar wax badanna aad kuley ka faa'iidi doontid haddii muuqaalkan aad dhameysatid. ugu horeynta ku soo dhaw channelka noolay garay muuqaalka sii share garay haddii ay ugu cusub tahay ku soo dhaw subscribe noo saar gambaleelka furo si mar walba cashirada ay kugu soo dhacaan meelba joogtid. hooyooyin badan oo waxaa jiro run ahaantii ilmaha markasto cuntooyinka ay siiyaan carqalado kala gedisan la kulmo. haddii aad tahay hooyadaas ku soo dhaw meeshan maanta mawduuca adigoo si gooni ah ku quseeya ma tahay hooyo mar walbo ilmaheeda cuntooyin u sameyso balse cuntada ay u sameeyday haba yaraatee aan waxba ka tarin. jawaabtaada haday tahay muuqaalkan si fiican u dhageyso. cuntooyinka caruurta la siiyo noocyo kala gedisan ay leeyihiin. mid kale ilmaha mid kasto cunto uu qaado karo ayaa jirto. ilmaha qaar cuntooyin way isla qaado karaan, ilmaha qaarna cuntooyinkaas aad bay u dhibeysaa. ilmaha xasaasiyada qabo wax kasto oo dufan leh wax walba oo borotiin leh aad buu jirkooda u dhibaa oo xitaa waxaa la arkaa in ay qufac joogto ah ay la imaadaan, maqaarka ay xogaan, nabra yaryar ay kasoo baxaan, matag uu ku sababo qufac ama balqan oo kale cunuga uu yeesho. kuwaasoo kale muhiim waxaa ah hooyada in ay kasoo baarto cuntooyinka allergiga uu ku qabo ama xasaasiyada uu ku qabo si ay u ogaato waxyaabaha dhibayo cunugeeda. laana guryaha Soomaalida inta ugu badan cuntooyinka markii la karinayo aqoon looma lahan, waa la iska kariyaa, waxaa la arkayaa oo kaliya ilmihii in ay ku xanuunsanayaan. taas looga badbaado waa marka hooyada in ay ogaataa cuntooyinka caruurteeda ee xasaasiyada ku qabaan iyo cuntooyinka aysan ku qabin. wixii lagu yiraa xasaasiyada ayuu ku qabaa cunugaaga waa inaad ka jooji kartid, daawadii dhakhtarka uu ku qorana aad sii kartid, aadna in semberi aad ka yareysid aad ku tala jiri kartid. haddii kale dhibaatooyin caafimaad ayuu kala kulmi karaa. hooyooyinka marka aan ilmahooda xasaasiyada qabin laakiin ilmihii wax walba ay siiyaan aan waxba u tareenin, kuwaasna muuqaalkan aad buu u quseeyaa weliba si gooni ah. hooyadaas haddii aad tahay muuqaalkan waxaan rajeynayaa in aad si fiican dhigaa ugu dhigatid. hooyooyinka noocaas ah markasto ilmaha ma ahan waxa qaldan ee waa ayaga. laana ilmaha cuntooyinkii la siiyo haddii aysan waxba ka tareen xanuunna uusan ku qabin cunugaas, waxaad ogaataa cuntada aad sameyneydid inay tahay cunto barax ah ama cunto aan isku dheelatirneen ama cunto munaasab cunugaaga uusan ku ahayn, uusan ka heleynin wax vitamins ah ama borotiin ama calcium intii looga baahnayo cuntadii maalinkii la siilahay ilmahaaga kama helaan. taas ayaana keeni karto in cunugii uu noqdo cunug abiteedka ka xiran, cunug aan saxaroonin, cunug xanuunsan mar walbo, cunug feeriis isku dhegan yihiin, cunug asaga dhan caata saa'ida ah oo miisan xumo heeso, cunug mar walba iska xanuunsan, cunug aneemiya xumo heeso. waxaasoo dhan waxaa ugu wacan waa cunto xumada ilmaha aad ku dishay. ilaahay ka cabsada, caruurta mar walbo waxyaabaha ku saacidayo u sameey, sida in aad baratid cuntooyinka, xeeladaha ilmaha cuntooyinka loo siiyo, in cuntooyinka borotiinka leh oo caruurta loogu talagalay aad sii kartid, cuntooyinka ilmaha wax u taraya sii. cunto kasta cunugaaga ha siin, laakiin muhiim waxaa ah cuntooyinka waxtarka caruurta u ah in aad siidid si wax badan ee jirkooda iyo maqaarkooda uu u noqdo mid ifayo qurux badan, koriimana ku socoto. ilmaha mar walba koriimaa ku socoto, sanad walbo iyo bil kasto oo kusoo wajahdo waxbaa ku darsoomayo. marka ha noqon geed qaloocan adigoo yacni sii wado oo geedkaas qaloocan qalooca ku sii wado. noqo hooyo mar walba toosiso geedkii qalooca. tusaale ahaan cunugaaga waxaa ku toosi kartaa in aad siidid cuntooyinka vitaminiska ay ku badan tahay. hadda loosaskan waxaan kuugu soo bandhigay ayagoo sidaan ah oo isku dardarsan $2 iyo 80 سنتي عمل كجوغان حياة
مول ما فهمتي وكل ميل كستو أو سوبر ماركت واكا جذا كرتا لكن أي كل ويجذان وما شاء الله ولا عجبي لو سكلا نوعية هدي أعرفتي ميت كستو ألمونكا كوبا كليتو نوع كسوري كرتا هذا اسكو قصي كرتيد هدي كلنا أيوة اسكو قصن أو نوع كستا أي هيان واتكسو يبسني ذا الماجوري اسكجرك اسكروجان ميتك المشارية ودر عنها أو الشيد أنتوين كوذا وحي بشارية أو كليتو أو الشيد wax badan oo jirkooda waxa arki doontaa kama qanaay oo cunugaas jirkiisa yani aad ay uu ka helo cunugaaga ma fahamtay laakiin hadii ay noqotid hooyo aan warka qabin ama aaba aan warka qabin ilmihii wixii ay ku sugan yihiin ama caafimaad darada heesa cunugii bil kasta dhakhtar aad taagan tahay taas waa nasiib xumadaasna yani waxay ku timid waa familigaas iyo umada Soomaaliyeed markasto caruurta waxyaabaha qaniga ku caafimaadka siiya ha loo sameeyo waxyaabahan dibadana la kaga keenan iska daaya sida burka faraha badan sokorta faraha badan waxyaabaha cananaasyada oo sajaleysan dhammaan intaad ka fogaa kartid ka fogaa hadaad yani ka fogaa karin iska yareey ma fahmaysaa waxyaabo badan oo waxa jiro ilmahaaga wax badan u tarayo anfacaad badan ay ka heli karaan aadna ogtahay laakiinse aadan sameeynin hooyo hadii aad tahay wax kasto kulli inta hooyonka ugu badan way la socdaan maantay ilaana hooyo kasto maanta day wax baarto wax badan ay helaysaa sida aniga aan filaayo ma fahamtay wax yar hadii laga reebo marka gabdho meesha ka kaca oo noqda gabdho wax badan og gabdho wax badan aqriyo gabdho yaqaan cuntooyinka caruurtooda munaasabka ku iyo cuntooyinka aan ku eegan caruurta ilmaha markasto koriimadooda marba heer ayay martaa heer kasto isku day wixii munaasab ku ilmahaas inaad u sameeyid cunugaaga iyo san noqon cunug caafimaad daro iyo maqaar xumo jir xumo koriima la'aan ay ka muuqato ha noqdo cunug markii la fiiriyo qurux badan soo jiidasho leh kala arag caafimaadkiisana hay waxaana ka saacidayo waa in aad siidid cuntooyin isku dhafan isku dheelatiran wax badan ay ka heli karaan ay jirkooda u baahan yihiin qaasatan caruurta wax barto aad bay ugu baahan yihiin cuntooyin isku dhafan oo waxtar badan ay ka heli karaan si ilmahaaga cuntooyin isku dhafan waxtar badanna ku jiro si ay kaaga yaraato xanuunada ilmaha ku dhaco difaac la'aanta caruurta soo weerarto iyo dhammaan wax kasta oo carqalad ilmahaaga ku dhici karo u sameyso waxyaabo dabiici adiga gacantaada aad ku sameeyay aad garanaysid waxaad ka sameeyay iyo wax gooyo intaba ha noqon hooyo markasto waqtigeeda si maala yacni ay uga baxaan waxyaabo kale oo nacfi badan aan ku jirin waqtigaaga ku bixi gurigaaga caruurtaada naftaada intaas iyo xilligii aad Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aad caabudi lahayd oo waajibaadkii laga rabay aad meel iska saari lahayd ha noqon hooyo waqtiga oo ugu dhamaado ayadoon waxba adduun iyo aakhirabo ka qabsan nafteeda iyo nafteena gabdho waxa u dardaarmaya in meesha laga kaco wax badan la soo saarto wax badan la sameysto ilmaha la qurxiyo caafimaadkooda laga warqabo koriimadooda sidoo kale cuntooyinka guriyaha la iska saxo wax kasta oo nacfi leh ilmaha lagu eexiyo iyo nafsadaada intaas ayaa noo dardaaran وإلاشينونيله هل كان دا لسو قارتي موقالك لاي قري سي شير قري سبسكرايب هذا إيسارين هذا إيسار ما حاجة في سنة هدو إلهي إدمو سينا يعني ويح ما عرفتي أو فكرة دينا نقبت وصو كومنتي يقول السو ذاك قبل بدن أو واحد شري يسو قري يعني بيلك قابك أي أمارستان قبل كلا أو واحد شرتي فيديو قارئ أسوق الله فاستي كومنتي سو قرتي وأيضا تلاهان نسوي ديستي لكن كومنتيgaas ay soo qortay ma aqaan gacanta iga dhacday aan u maleynaya waayo meel ka baxay gabadhaas aydan Soomaaliya baayo hadii awoodid markale ku soo celi laakiin waan aqriyay markaas laakiin ma ana ka soo sameeynin muuqaal insha Allah waxyaabo aad doonaysaan oo dhaqaalaha wax waaye hoos ku soo qora si aan uga soo hadlo leena channelka waa isla leenahay family aan nahay fahamtiin wixii u baahantiin dhammaan
qaybta hoose commentiga kusoo qora dhaqaalaha nadaafada guriga howsha sida loo kala maareysto cuntooyinka asbuuclaha ah waxyaabahaas oo dhan intii yani wax badan iga soo sheegi karo waan iga soo sheegayaa wax badan aan ka faa'iidno ayaana ka soo diyaari doonaa insha Allah marka waxaan leeyahay muuqaalka hala saaro like badan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh